way fiican tahay mararka qaar in dib loo xasuustaba. aniga xataa markaan dib u xasuusto qalbiga ay xanuuno. marxaladda jacaylka waa marxalad aada u qalabsan, waana xuduudaha nolosha ka mid ah, wayna adag tahay dadka qaar si ay u maraan. runtii qof walba oo bini aadan ah way u fududahay inuu jacayl sameeyo, laakiin waxaa aada u adag inuu ka gudbo xuduudda uu leeyahay jacaylka. aniga markaan teyda ka hadlo, markaan soo xasuusto runtii aada ayaan u dareemaa dhimbilo oo uu leeyahay jacaylka. wax yar oo xasuusteeda ka mid ah haddaan idin tuso. Hello baby. noloshayda waxaan rabaa inaan wax kuu sheego gacalsiyada xabsa. ii sheeg cabdiweli gacalay. anigu waan ku jeclahay. anigaba sidoo kale waan ku jeclahay. waxna ama cidna ma bedeli karta jecelkaan kuu qabo. waan ogahay. waa balan marnaba kuma cidleen doono adiga. anigaba sidoo kale. waxaa tahay gabar aan ku tiirsada mar kasta. kuma cidleen doono. waxaa tahay gabar aan ku tiirsada mar kasta. kuma cidleen doono. waxaa tahay qofka keliya ee aan ogahay inaan isku halay karo. naftaaba aaminsan. waxaa tahay jaceylka noloshayda. kadibna waxaa tahay qof aniga qaasi ah. anigaba iftiinkaygaa tahay. aniga adiga ileh. adigana anigaa ku leh. jecel maan aqoon ilaa aan adiga kula kulmay. waad ku mahadsan tahay intaad i jeceshahay. haddaan adiga ka fikiraya dhoola caddeen baa wejigayga soo fuusho iyo xitaa qalbiga. sidaad u soo gashay noloshayda, waxaan noqday qof mar kasta faraxsan. wax walbaan u baahanahay waa adiga. waad arkaysay mar malaynayaa marxaladda jacaylka aad iyo aad ayay u qurux badan tahay, laakiin way adag tahay si loogu guuleysto. inaan halkan ka calaacalo ma sheegayso inaan guul darayste, laakiin waa dabeecado ka mid ah marxaladaha jacaylka. run ahaantii dad badan ayuu cilmi iyo cashar u dhigay jacaylka. waxaa ka hadlay abwaan badan, waxaa ka hadlay khubro badan, waxaa ka hadlay mucaashiqiin fara badan, waxaa u geeriyooday dad badan, waxaa ku faa'iiday oo ku noolaaday oo marxalad qurux badan ilaa iyo hadda ku nool dad badan. dadkaasoo la magac baxay mucaashiqiinta. runtii wuu faa'iidaa qofka uu saacido nasiibka. jacaylka waa magac, laakiin waa erey, laakiin waa wax qalbiga ku dhaco. qaabkuu ugu dhici karaa qofka jacaylka? waxa ugu dhici karaa in qof bini aadan ah ugu horeyn uu ka helo ama uu ka dareemo naxariis qalbigiisa. runtii jacaylka ayaa laba kala ah. midna waa qof indhaha uu ku arkay qof uu ka helo, midna waa qof qalbigiisa naxariis uu ka dareemo qofka kale uu ku jeclaado. runtii jacaylka naxariista ku bilowdo waa jacayl aada iyo aada u xanuun badan. waa jacayl jacaylada kale ka duwan. waa jacayl run ahaantii faa'iido badan mararka qaar horseeda. waxaa iga xasuusina dad badan ayaa jira oo jacaylka la ciyaaro ama ku ciyaaro. dhallinyaradeena maanta waxay u badan yihiin dad ku ciyaaro jacaylka. hablaheenana waxa ay ku jiraan dadka jacaylka la ciyaaro. runtii jacaylka wax ciyaar la yiraahdo ma galo. haddaad u malayso inaad jacaylka ku ciyaaraysid ama qofka aad la ciyaarayso inaad jacayl ugu ciyaaraysid, isla isagaas ayaadba jeceshahay, laakiin adiga ma ogid. qofkii mar walba waqti kaa helo, adigaad u malaynaysid inaad ku ciyaarayso. mar walba hadalkaaga aad maqashaysid, adigaad u malaynaysid inaad ku ciyaarayso. mar walba aad telefoonkiisa garaacdid, adigaad u malaynaysid inaad ku ciyaarayso. qofkaas kuma ciyaaraysid, si saxa ayaad u jeceshahay. waxba naftaada been ha u sheegin. waxaan kaloo xasuusinayaa dhalinyarada maanta, qofka jacaylka ku ciyaaraya waa qof dhimbil dab ah ku ciyaaray oo kale.
run ahaantii jacaylka waa wax qalbiga haleelo bini aadanka qof ilaa iyo hadda sheegay daawadiisa ama kan gungaarayna ma jiro runtii mararka qaar in dib loo xasuusto noloshii hore way fiican tahay inkastoo nolosheeda aad aynan u taariikh badnayn haddana marxaladaha jacaylka waxaan u malaynayaa 90% ibni aadanka markuu soo hana qaado ama uu qaangaaro ama dadnimada bini aadanimo uu soo gaaro inuu haleelo gaar ahaan dadka daayarta ah ragga iyo dumarka runtii aniga halkan kuma soo koobi karo qaababka jacaylka uu kala dhigmo waxaan rajeynayaa hadda wixii ka dambeeyo inaan u dabagali doono in aan research ku sameyn doono xaaladaha jacaylka iyo qofka jacaylka xaayo marxaladaha uu ku sugan yahay waa arrin aad iyo aad u macaan badan markii nolosha ay ku lamaanayso waa arrin aad u udgoon badan markii nolosha ku lamaanayso laakiin waa arrin aad u kharaar markii nolosha ku caqabadayso run ahaantii noloshaada waxay caqabad dareentaa markii qofka aad farxadda ka helaysid aada weydo markii qofka aad nolosha la qaybsanayday aada weydo markii guri buuxay oo 2 qof ay ku joogeen mid laga waayo nolosha madowgeeda iyo mugdigeeda halkaas ayuu ka bilowdaa run ahaantii waana arrin aad iyo aad u mudan in loo dulqaato runtii waxaa jirto wadooyin aad u dheerdheer oo loo maro guulaha nolosha ee lagu sheegayo waxa ugu horeeya in qofka noloshiisa uu guul u sameeyo guushaas oo ah qofka in uu ubad ay ka dambeeyaan ilaahay baa ubadka bixiyo haddana waana laga maarmin in wadooyinka loogu talagalay in ubadka lagu helo in la raadiyo runta aniga halkan uma fadhiyo caawa in macnaha aad idinla sheekaysto mararka qaar waxaan dib u xasuustaa nolol hore oo aan soo maray runtii markii aan xasuustana aniga laftirkayga ayaa qalbiga i dhaqaaqo taas cabashayga maaha laakiin waxay xasuusin u tahay dadka jacaylka la ciyaaraya ama dadka jacaylka ku ciyaaraya erayada qaar markaad weydaarsanaysaan adiga iyo qofka markaa nolosha idin dhexayso waa erayo aad iyo aad u macaan badan waxaad samaysaa ballanqaadyo aad u qurux badan laakiin rajada dhabta ah ma tahay ballanqaadkaas inaad samayn doonto midda ayada ay kuu sheegaysasa ma tahay mid dhab ah runtii waxa uu leeyahay jacaylka ballanqaadyo aad u fara badan waxa uu leeyahay kalsooni aad u fara badan waxa uu leeyahay dhaqan qurux badan ee ka duwan dadka kale sida ay u dhaqmaan runaantii qofka aad jeceshahay waad kaga duwan tahay sida aad ula dhaqanto bulshada kale waxaad u samaysaa waad u dhagan nugushahay waad u ogashahay waad u dabacsan tahay waadna u dulqaad badan tahay ma u dulqaadatid qof kale qofka aad jeceshahay intaad u dulqaadato runtii inaad dulqaadato waxaa keenayo dareenka dhabta ah ee ilaahay ku abuuray ibni aadanka ilaahay ayaa dareen isugu abuuray labka iyo dhadiga gaar ahaan ragga iyo haweenka markii aan kasoo tagno noolaha intiisa kale ragga iyo haweenka aayadda qur-aankeed waxay ahayd litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma jacaylka ma ahan wax qofka bini aadanka isaga uu iska keeno ee wax qalbigiisa ku abuurmo kadibna dareensiiyo qofka kale uu jecel yahay waxa uu ka bilowdaa mawadda iyo raxma naxariis iyo macaan mawaddo dadka inta badan mawaddo waxay yacni ku turjumaan ama ay ku sheegaan yacni mawaddo macaan naxariis intaba way dhahan raxmadna waaba naxariis cid aanan aqoonin maanta inaysan jirin baan u malaynayaa cidda aanan aqoonina haddaan u sheegaynaa raxmad waa naxariista ilaahay baana laga quusanin laakiin waxaa jirto naxariis ku dhex jirto kelmadda jacaylka ah qofka aad jeceshahay u ogolow inaad u naxariisato u ogolow inaad u dulqaadato u ogolow inaad la noolaato runtii caqabadooyin fara badan ayaa ka hor imaado dadka lamaanaha ee isjecel waxaa jiro soomaalida waxay ku tilmaamto saddexeeye ama cadowga jacaylka cilado fara badan ayuu dhinacyaha ka keenaa qofkaas run ahaantii hal qiyaas ayaan ku siinayaa waddo dheer oo aadan aqoonin ayaa lagu tilmaamay waddada horteedana waxaa ku yaala meeshii adiga aad ku oonbixi lahayd yacni waddada way dheer tahay waxaase ku yaalo meesha ugu dambeeya ceelka biyaha aad kasoo dhaansan lahayd ceel kale oo ka sokeeyana ma jiro runtii ceelkaas wuxuu u baahan yahay ugu horeyn geesinimo tan labaad wuxuu u baahan yahay karti tan saddexaad wuxuu u baahan yahay dulqaad waddadaas aad ku marto waddada way dheer tahay mana taqaanid waxa kaaga hor iman doono nolosha laguu sheegaya guusheedana waa waddo aada u dheer dhinacyadana ay ka bannaan yihiin
cid walibana ay hunguriyeynayso in ay wadada ay gaarto. runtii wadada waxa ku socdo dad badan oo raadiyo guusha, waxa ku socdo dad badan oo cadow ah oo jecel nolosha guusheeda, waxa kale oo ku socdo wax ku xiran oo yacni qofka insaanka ah laga dhaadhicin kara in noloshiisa uu ka gungaari karay inuusan ka gungaari karin. adigu ma tahay qof noloshiisa raba inuu ka gungaaro? runtii kalsoonida iyo isku xirka ilaahay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. adigoo ilaahay ku xiran, rajaynayana in noloshaada ay saxan tahay, ku dhaqaaq wadadaas aadkii aadka u adag. anigaaba kuu sheegay inay waddo adag tahay, laakiin waxay u baahan tahay dulqaad fara badan iyo dabacsanaan. koley halkan iguma ekaan doonto sheekadeeda. waxaan rabaa inaan wax badan ka dhegdhegeeyo ama aan kasoo taariikhayo marxaladda jacaylka ama nolosha gaarka ah ee dadka lamaanayaasha. anigoo caawatayda markii aan ka bilaabay waxay igu noqotay inaan dib u xasuusto nolol hore ee aan soo maray. laakiin si kasta ay tahay, ma diidani calafka, mana diidani waxa ii qoran. waan ku qanacsanahay wadada ilaahay ii ogolaaday, wadadaasna waan ku kalsoonahay. haddii ay noqoto inaan wax ku waayo iyo hadday noqoto inaan wax ku helo, laakiin ani nolosheyda waxaa u furan hal wado oo ah dadaal. inaan dadaalo waa inaan nolosheeda guusheeda aan ku raadiyo. insha allah waxaan rajaynayaa aniga tiimkaygana inay caawa wixii ka dambeeyo u kaba gashan doonaan, inay ilaahayna isku xiraan, noloshana ay ka gungaaraan. weligaa dib ha u jeesanin, anigana dib uma jeesan doono. waxaan noqon doonaa tiim isku xiran oo horey u socdo oo raadinaya guusha nolosha. caawa waxaan digniin u dirayaa dadka lamaanaha ah. waxaan halkan fariin adag ooga dirayaa ragga. waxaan leeyahay walaaladay, haweenka waxay u baahan yihiin dulqaad aad iyo aad u fara badan. meeshii aan kasoo askunay ee xaawo iyo aadan ahaa, ayaga ayaa shaydaan ka dhex shaqeeyey oo xaawo wejigeeda ka dhex tusay biyo dhexdooda, oo shaydaan uu ku yiri wataa xaaska lagula qabo. halkii ayuu masayrka kasoo bilowday. waa wax soo jireen ah. waxaa laga yaabaa waxyaaba aadan sameynin ama damiirkaaga uu keenaynin in lagugu nabo ama lagugu dhibaateeyo. waxaasoo dhan waxaa ka wakiilka ah inaad dulqaadka badiso. aniga caawo waxaan ballan qaadaya inaad dulqaato caawo wixii ka dambeeyo. idinkana asxaabteeda waxaad ila ballan qaadaan inaad dulqaadataan. insha allah waxaan ku sheekeysan doonaa commentiga. qof walbana marxaladda nolosha uu ka jecel yahay inuu ka maro wuxuu igu soo diri doonaa commenti. insha allah waana wada sheekeysan doonaa, waana falanqeyn doonaa. insha allahu tacaala caawa sheekadana halkan ay ku eg tahay. waxaan rajeynaya insha allah inaan mid taxanaha ka dhigi doono, aniga idinkana aan ku sheekeysan doono, aniga oo ku hadlayo afka tiimkayga MJR Showbara Films, Fawzi Daacad Brothers, afkooda aniga ku hadlaya caawo. waxaa yacni inaga go-an inaan nolosha guusheeda gaarno. wabilaahi towfiiq. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.